kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan dhacdooyinka caalamka muuqaalka inta daawanaysa waxaan ku soo gudbin doonaa wada hadaladii fashilmay ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan kaasi oo ka socday magaalada Islaamabad ee caasimadda wadanka ee Pakistan ahayd cida dhankeeda uu ka yimid fashilka qodobada miiska la soo saaray ee la isku qabsaday isla markaana keenay in shirka lagu kala tago ayaa halkan kugu soo gudbin doona shir jaraa'id uu qabtay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka oo shirkaasi ku matalaya Mareykanka ayaa halkan ku ula wadaagi doona isagoo wajigiisa ka muuqatay qalbi jab maadaama uu filayay shuruudihii ay wateen in Iiraan ay aqbasho balse Iiraan ay gabi ahaanba ka soo horjeesatay waxyaabihii ee shirkaasi jaraa'id uu ku sheegay ayaa muuqaalka idinkugu soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona mar kale in laga cabsi qabo in xaaladda bariga dhexe ay faraha ay ka sii baxdo maadaama wada hadalladii la qorsheenayay inay ka soo baxaan qodobo muhiim ah oo ku soo dhamaaday is-afgarad la'aan hanjabaado kala duwan oo mar kale hawada la isku mariyay halkan kugu la wadaagi doona haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambalelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share gareey laakiin oo saar si uu gaaro asxaab badan wad ku maasantaa daawashadaada aynu ku bilaabno magaalada Islaamabad ee caasimadda wadanka ee Pakistan saacadii la soo dhaafay waxa ka socday shir xasaasi ah oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan labada dhinac waxa ka socday mas'uuliyiin sarsare oo si aad loo soo xulay kuwaasi oo la qorsheenayay in halkaas ay ka soo saaraan qodobo xasaasi ah oo lagu soo gabagabeyn karo dagaalka ka socda bariga dhexe iyadoona labada dhinacba ay ahaayeen kuwa si aad loo soo adkeeyay midba midka kale uu ku adkeysanayay mowqifkiisii uu shirka uu ku soo fadhiistay in uusan ka tanaasulin shirka oo ahaa mid indhaha caalamka si aad loogu wadahayay qodobada ka soo bixi doona ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyadoo shirkaasi ay garwadeen ay ka ahayd Pakistan oo doonaysay in xal waara laga gaaro dagaalka ka socda in bariga dhexe balse shirku uu ku soo dhamaaday wax natiijo la'aan labada dhinacna ay ku kala laabteen wadamadii markii hore ay ka yimaadeen qodobada ugu muhiimsanaa ee shirka miiska la soo saaray oo go'aanada ka soo bixi waayo waxa kamid ah in Mareykanka uu doonayay in si shuruud la'aan loo furo marinbiyoodka Hormuz iyadoona Iiraan qodobkaasi gabi ahaanba ay ka soo horjeesatay bedelkeedana Iiraan ay wadatay shuruud la xiriirta hadii ay furayso marinbiyoodka Hormuz markab kasto isticmaalaya halkaasi ay lacag ay ka qaado Iiraan iyadoona Mareykanka arintaasi si aad ugu soo horjeeday qodobkaasi waxa uu noqday in uu ku fashilmay oo midba midka kale go'aankiisii uusan waxba ka bedelin qodobada kale ee miiska saarnaa ee keenay in shirka uu fashilmo waxa qayb ka ahaa in Mareykanka uu watay in Iiraan ay joojiso sameynta hubka nuclear-ka sidoo kale bacriminta uranium-ka iyadoona Iiraan qodobkaasi gabi ahaanba ay ka soo horjeesatay waxay ahaayeen qodobadaasi labada qodob ugu muhiimsan ee miiska la soo saaray inkastoo ay jireen qodobo kale oo labada dhinac isku fahmi waayeen balse labadan qodob ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu xasaasisan oo labada dhinacba ay ku adkeysteen mowqifkoodii ay miiska ku soo fadhiisteen oo labada dhinacba waxay diideen in midkood uu tanaasulo sababahaas ayaa waxay keentay in shirka uu ku soo dhamaado wax natiijo la'aan ah iyadoona dhinaca Mareykanka ee madaxweyne ku-xigeenka laga dheehan karo wajigiisa mid niyad jabay maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi uu ku cadaadinayay sidii shirka ay ugu soo bixi lahaayeen wax natiijo ah isla markaana mowqifkii Mareykanka ugu dhaadhici lahaa Iiraan balse Iiraan dhankeedu waxay ahayd mid si aad isku soo adkeysay intii uu socday ee shirkaasi wararka soo baxay waxay sheegayaan in markab uu leeyahay Mareykanka uu doonayay inuu isticmaalo marinbiyoodka Hormuz kaasi oo soo dhaqaaqay balse shirka dadkii ku sugnaa mas'uuliyiinta lagu wargeliyay in markab uu leeyahay Mareykanka uu soo dhaqaaqay isla markaana uu doonayo inuu isticmaalo marinbiyoodka Hormuz mas'uuliyiinta Iiraan shirka kaga qayb galay Islaamabad ayaa waxa ay halkaas ay ka soo saareen go'aan culus oo ku aadan hadii marinbiyoodka ee Hormuz uu soo gaaro markab Mareykanku leeyahay 30 daqiiqo gudahooda ay duqeyn ay la bartilmaameysan doonto
iyadoona isla markii go'aan culus laga gaaray markabkaasina la joojiyay go'aankaasi dad badan ayaa waxa uu ku noqday mid si aad u soo jiitay isla markaana waxa halkaasi laga dheehan karay go'aanka adag ee Iiraan xilligan ay ka taagan tahay isticmaalka marinbiyoodka Hormuz iyadoona Mareykanka halkaasi uu yahay mid muhiim ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka inta uusan ka dhoofin Islamabad waxa uu qabtay shir jaraa'id waxaana shirkiisa uu ku sheegay ilaa qodobo dhowr ah hal mar waxaan dulmareynaa qodobadii uu shirka jaraa'id uu kaga hadlay waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka uu sheegay in 22 saacadood oo wada hadalada nabadeed uu ka dhacay Islamabad kadib markii Mareykanka Iiraan ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis lagu joojinayo dagaalka bariga dhexe waxa uu sidoo kale shirkiisa jaraa'id uu ku sheegay waxa la yeelanay Iiraaniyiinta wada hadallo dhowr ah oo dhaxalgal ah taasina waa warar wanaagsan waxaana xusid mudan in shirkaasi uu laga gaarin wax heshiis ah waxaana u maleynaynaa intaasi ay ku xuntahay Iiraaniyiinta in badan wuxuuna sheegay in mowqif adag halkaasi ay la yimaadeen waxa uu sidoo kale yiri run ahaantii uma suurtagelin inaan gaarno xaalad ay Iiraaniyiintu ku aqbalaan shuruudaheena aan miiska ay soo saaranay inkastoo Iiraaniyiintu ay ahaayeen kuwa naftirkooda watay shuruudo oo horeyba u sii ogaa Mareykanka shuruudaha la imaan doono taasi cagsigeedana ayagu ay la yimaadeen sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyay qadarinta uu hayo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan sidoo kale mas'uuliyiintii kala qaybta ka ahaa ee garwadeenka ka ahaa shirka socday muddada 22 saacadood kaasi oo ka socday Islamabad una dhaxeeyay Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan isla markaana lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu yiri wada hadaladu waxay ahaayeen kuwa qiimo badan ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan waan kaga mahadcelinaynaa dadaaladooda inkastoo shirka uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan waxa kale oo shirka jaraa'id uu ku sheegay ama baa lagu weydiiyay su'aal ahayd wariyaasha ay weydiiyeen awoodda nuclear-ka ee Iiraan waxa uu ku jawaabay in laga hortagayo awood kasta oo Iiraan ay ku doonayso inay ku sameyso hubka nuclear-ka hadii ay ahaan lahayd waqti dhow iyo sidoo kale hadii ay qaadan lahayd waqti dheerba waxa uu sidoo kale intaasi ku taray in Trump uu si firfircoon uga qayb qaatay wada hadalada isagoo sheegay inuu madaxweynaha la hadlay intii u dhaxeysay 6 jeer ilaa iyo 10 jeer intuu shirka u socday taasina waxa ay ka muuqataa in madaxweynaha ku-xigeenka dalka Mareykanka uu si aad talada ugu qaadanayay madaxweynaha dalka Mareykanka oo isna go'aanka uusan lahaynba kaliya qodobada ee Trump uu soo dhiibay isagana miiska uu la soo fadhiistay qodobada maadaama laga dheehan karay in hadaladiisa in 7 jeer ilaa 10 jeer uu la xiriiray madaxweynaha dalka Mareykanka kaasi oo go'aan uu ka gaarayay qodobadii miiska la soo saaray madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka oo wajigiisa laga dheehan karay niyadjaba ayaa ka duulay kadib markii shilka uu soo fashilmay magaalada Islamabad iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kale shirka qayb kala ahaa waxa sidoo kale garoonka diyaaradaha Islamabad ka duulay mas'uuliyiintii ka socotay Iiraan kadib markii shirka uu soo gabagaboobay Pakistan waxay sameeynaysay isku day ay ku doonaysay in wada hadal nabadeed ay ku dhaxdhigto Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan si loo qaboojiyo xaaladda bariga dhexe iyadoona markaan laga cabsi qabo in dagaalka wajigiisa saddexaad uu bilowdo maadaama Iiraan ay go'aankeedii ku adkaysatay Mareykankana go'aankiisii uu ku adkaystay lana filayo amaba labada dhinacba laga cabsi qabo inay markaan isticmaalaan awoodo cusub aanan horey looga baranin wixii xogay macluumaad ay ku soo kordho muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo leega maleelkana fursi ku soo gaaray muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahay muuqaalkana share garay laakiin oo saar soo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada